dusha sare alla jira daafaha warbayaal dadka loogu talagalay nin laho wadaydayo alihi wasaxbi wasallam hool kale aan ku sugannahay oo ah magaalada Oslo caasimada dalka Norway xaafadda Greenland waxaanu soo dhaweynaynaa maanta oo halkan marti inoogu ah oo dalkii ka yimi waa Suldaan Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Cabdiraxmaan oo dhamaanba reer Norway ay wada garanayaan oo ah suldaan kamid ah salaadiinta miisaanka leh reer Norway reer Somaliland oo hadda inoogu ka yimid dalkii hooyo hadda lagu soo dhaweynaya adiga oo oran doona kelmadii ku haboonay bismillaahi kariim wad fadhiisan kartaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى waxaan filayaa laba kelmadood un baa halkan iiga furan kelimadi waa mahadnaq soo dhaweyntiinana kelimadina waxa weeyaan waa kelmad xog warana arinta mahadnaqa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii maaha yani xafladda la isugu yimi oo qura laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan reer Norway markii horena ku aqaanay joogi jiray midnimada iyo isku xidhnaanta waayo haddii maanta halkan gobol quri igu soo dhaweyn lahaa ama magaalo quri igu soo dhaweyn lahayd qiimo ma yeelateen laakiin reer Norway oo dhan inay halkan isugu yimaadaan inkastoo runtii meeshu yar cidhiidhi tahay kulushahay raali ahaan doontaan maadaama aa u badan tihiin reer Norway waa qaabkan idinku aqaanay Yurub ama meelaha aan maray ee kale oo dhan dadku waxa weeyaan waa dad kala wada qoqoban laakiin inagu waxay ahayn sideen idinku aqaanay dad isku xidhan ma sida loo badan yahay intaan masaajid qurayn wada leenahay haddaynu nahay reer Oslo way jireen baa la yiri adigu dad ka baxay laakiin aad iyo aad bay u yaraayeen majority marka loo eego Soomaalidu hal masaajid bay wada leeyihiin waxyaabo badan oo aynu wadaagi jirnay oo far badan way jiraan marka tii unba idinka muuqata marka taasaan aniguna aad iyo aad ugu faraxsanahay oo wax weyn runtii ah waanan idinkaga mahadnaqayaa soo dhaweynta ballaaran ay samayseen inkastaan dee muddo idinka maqnaayo dadkii yaryaraayan dee caruurta ahaayaan gacanta qaban jiray iminka dadka talada hayaaba ay yihiin oo aanan badidooda isgaranayn inta odayaasha un baan runtii iska garanaynaa laakiin aad iyo aad ayaan arrintaa ay samayseen idinkaga mahadnaqayaa arrinta xog waranka wadankii de kolley waa la socotaanoo waxba idinkuma seegana qofka jooga iyo ka dibadda jooga waxaad moodaa dee waxyaabo yaryar mooyaane inta badan waxa weeyaan wararka waa la helaa laakiin wararkaa la helo waxaa laga yaabaa in qaarkood si jaanibiya loo helo qaarna si saxa loo helo qaarna isagoo aan sugnayn la helo waxyaabaha xog waranka aan doonayo inaan idinka siiyo waxaa ka mid ah doorasha waddankeennii ka dhacday doorashada ka dhacday waxoogaa raada bay inoo ku reebtay waxoogaagaa raadka inoo ku reebtay ayaan doonayaa bal inaan waxoogaa ka idhaahdo dhibaatada ina haysata guud ahaan iyo gaar ahaanba doorashooyinku waa ka mid waayo inagoo dad muslina ah oo dhaqan leh oo diin leh
ayaynu nidhi waxaynu qaadanay dimuqraadiyad. dadka kale dimuqraadiyadda way iska shaandheeyaanoo marka hore tay qaadanayaan waxay yidhaahdaan maxaa ina waafaqsan maxaase ina waafaqsanayn. dabeedna way shaandheeyaan waxay yidhahdaan intaasaa taayada waafaqayso dabeedna intaasaanu ka qaadanaynaa. cid ku qasbaysaa ma jirto. laakiin waxaad moodaysaa inagu inaynu sideedii inagoo aan shaandhayn isaga qaadanay. taas waxay keentay markaa in waxaa la yidhahdo qabyaaladda iyo dimuqraadiyaddii dee isku geli waayaan. waxaynu furannay xisbiyo qaran. xisbiga qaranka ahi isagoo xisbi qarana waxay ahayd inaanu qabiil ku tiirsanaan. markuu xisbi qaran yahay inaanu qabiil ku tiirsanaan, inuu ku tiirsanaado xubno dee xisbiga dhisa oo maalgeliya oo dabadeedna dee ka shaqeeya inuu ku tiirsanaadaabay ahayd. laakiin ma ahayn inuu ku tiirsanaado qabiil. mar kasta oo doorasho dhacdo waddankeena ka dhacdo 3 meelood bay aada u saamaysaa. meeli waxay aada u saamaysaa waxaa la yidhahdo dhaqaalaha. waqti kasta oo doorashayna soo marto dhaqaalaheennu dhulka ayuu galaa. dhaqaala way saamaysaa waayo waxyaabaha ugu badan ee la isticmaalo waxaa ka mid a shidaal iyo bahalka la yidhahdo qaadka ayaa ugu badan. maadaama labaduba aanay waddankaaga dee ahaynee dibad aad ka soo iibsanaysid ama lacagteedii ay baxayso, waddanku runtii marka doorashooyinka laga soo baxo wuxuu noqdaa waddan aan lacagi dhexo ool oo dabadeedna hanaaba. marka xagga dhaqaalaha way taabataa. waxay kaloo taabataa dhinaca akhlaaqda oo markaasaa doorashadu bilaabanto. anu waxaan ka shaqeynayay qoladii commissionka la shaqeynaya guddida anshaxa ayaan ka mid ahaa. waxa ugu badan ee codeeya ama orda ama ololeeya waxaa ugu badan dhalinyaro iyo dumar. dabadeedna waxaa dhacdaa isdhexgal badan, dabadeedna waxyaaba fara badan oo aan dee diinteena islaamka ku habbooneyn oo aada u foolxun oo fara badan baa dhacda oo dhinaca akhlaaqdana way taabataa. meesha se ugu daranay taabataaye saddexaad waxa weeyaan dadkii walaala ahaabaa kala dhinta, ayay kala dishaa. sababtoo ah minka wadamadanaynu joogno hadday 2 nin iska soo horjeedaan waxay isku dhaliilaan waxqabadkii qofkan hore iyo waayo aragnimadiisii hore iyo wuxuu qabtay wuxuu ka gaabiyey ayay isku dhaliilaan. dabeedna anigu kaasaan kaa kaga wanaagsanaan doonaa, waxaasuu ku xun yahay ama kaa idinma qaban doono ayay is yidhaahdaan. laakiin innaga waxaa inoo hoos gashay qabiilkii oo wax la odhanayaa kaas waa ayo waa qabiil hebel. dabadeedna hadduu wanaagsan yahay hadduu xun yahayba reer hebelnimadaa lagaga tegayaa. waa wax runtii aada u liita oo ay ahayd markaynu xisbiyo qaran samaysanay in systemkan qaadanay dee inaynu iskaga tagno qabyaaladda iskaga tagno waxaas ayay runtii ina ku yaraataa bay ahayd. taasu markaa waxay keentay in walaaltinimadu dhimato, in la is aflagaadeeyo, in waxyaabo badan oo fool xumi ay dhacaan. dabadeedna arrimaha walaaltinimada dilaya ayaan dareemayaa inay soo gaadho qurbaana soo gaadho. waayo dadkii walaalahaa ee halka ku wada noolaa tee taageerayaal xisbi bay kala ahaayeenoo midba xisbi buu taageerayay. dabadeedna saamayntii halkaa ku yeelatay halkiinana way ku yeelanaysaa, wadamada kalena way ku yeelanaysaa, meel walba way gaadhaysaa way ku yeelanaysaa. haddaba maxaa idinkala gudboon maadaamay 3 meeloodba saamayso? idinka haddaad tihiin halkan joogtaan Norway maxaa idinkala gudboon? waxaa idinkala gudboon inaan walaaltinimadiinu dhiman. nin baa sharaxnaa ama 3 nin baa sharaxnaa way kala guulaysteenoo nin baa helay. berrina waa la tartami doonaa, berrina nin kalaa heli doona. sidaasay ku soconaysaa. dee horena aynu ugu soo jirnay iminkana ay ku soconaysaa.
laakiin dadkiina halkan jooga waa inaanay ku dhiman walaaltinimadiinu ama waxyaabihii dhacay aanay idin kala fogeynin sidii laga warramayay iminka waayo duruufta ka jirtaa halka iyo duruufta ka jirtaa Somaliland way kala duwanta Somaliland qofku hadduu qofka kale ka cadhoodo dee meeshii dawlad baana jirto shaqaynaysa labadaa qof ee kala cadhooday wax ku dhex lumayo badani ma jiraan laakiin marka Norway la joogo kala cadhooteen iyo khilaafka wax badan ba idinkaga lumaya waa waxa iminka laga hadlayay lahaa waan maqlayay dee sanawaadkii ugu dambeeyaba caruur badan baa laga qaaday haddaa isku xidhan tihiin waa dhacsan kari lahaydeen ama inta dambe la joojin kari lahaa wixii hore dhacay laakiin isku xidhnaan la'aantiina iyo khilaafka jira aawadeed ayaa cid waliba idinka faa'iideysanaysa waxay og yihiin inaad dad nugul tihiin dawlad la ictiraafsan iyo safaarada halkan joogto oo dabeedna wuxuu doonaysaa inaanay jirin idinkuna aydinaan lahayn dad isku xidhan oo dabeedna midaysan oo midnimadooda wax ku dhacsanaya dabadeedna waxa weeyaan cid waliba way idinka faa'iideysanaysaa oo waxa weeyaan waayo waa dareemaysaan dhibaatooyinka gaar ahaan Soomaalida haysta halkan ku haysta dib bulshooyinka kale ma haystaan yani dhibaatooyinka qaarna waa kuwa caama oo dadku wada wadaagaan qaarna waxa weeyaan waa wax cid u gaara cid idin la mid yihiin ma jirto dhibaatooyinka la idinku hayo waan ogahay inaanay dadka kale ajaanibka dalka degan inaan lagu hayn waayo ama safaaraday leeyihiin oo safaaradaha u hadlaya ama waxay leeyihiin ururo adag oo midaysan oo dabadeedna wixii dhacsanaya marka qofku markuu wax dhacsanayo dee inuu baa laga leexleexanaya laakiin idinka haddaydinaan midaysnayn oo isku xidhnayn wax la idinkaga leexdaana jirin dee kabaha la idinla dulmaraya dabcan waana waxa iminka jira marka halkiinanu maadaama uga baahi badan tihiin gacan isqabsiga uga baahi badan tihiin meelaha kale waa inaad dantiina eegtaan oo sida ubadkiinu ku badbaadayo sida qoysaska burburaya aanay ku burbureen iyo sida aad gacanta isu haysan lahaydeen runtii waa inaa de ka shaqaysaan kolley wadamadan westernka aynu ku noolahay dee wax badan oo wanaagana way leeyihiin oo ma wada dhaliilayno waxooda dhan ma wada tuurayno in laga faa'iideysto waxooda wanaagsan ayaa wanaagsan oo qofka halkan jooga jaaniska uu haystee matalan waxbarasho yani helayo inaanu lumin waxbarashadiisa uu qaato wixii anfacaya adduun iyo aakhiraba uu halkan ka faa'iideysto ka qaato waxaan ku soo ururinayaa oo aan idinkaga tegayaa marka hore waan idin ducaynayaa in ilaahay kelimadiina mideeyo in quluubtiina isu soo jeediyo inuu idinka dhigo walaalaha waynu ognahayo inagu dee ka aynu reernimada ama dee aabbaa iyo hooyadu wada dhaleen baynu inta badan u naqaanaa laakiin islaamku wuxuu ka hormariyaa oo ka weyn walaaltinimada islaamka mar haddii dadku dad muslimiina yihiin waa walaalo marka in walaaltinimadiinaasu aanay qoonmin oo walaalo noqotaan oo quluubtiinu wanaagsanaato oo dabadeedna cidda aad doorataane marba dee idiin talinaysa aad ka dambaysaan aad iyo aad bay muhiim u tahay waayo dadku haddaanu kala dambayno madax iyo minjo yeelan waxba u hagaagi maayaan qoladaas xilqaantay eena Cumar Hadraawi iyo ka mid yihiin iminka inay yidhaa arrintaasaan ka shaqaynaynaa runtii waxaan ku talin lahaa in dadkeena waxgaradka iyo odayaasha iyo dhammaanteen aad taageertaan
dabadeedna Soomaalidu waxay tahdaa wada hadlaaba heshiiyay dadku hadday isu yimaadaan oo wixii dhacay ka wada hadlaan wax laga yaabaa in wax badan laga bogsado laakiin marka la kala aamusan yahay la kala maqan yahay ku tiri ku teenada badan iyo hebel baa sidan lahaayo kanu yidhi oo cayn karo dabadeedna wala sii kala fogaadaa marka in dadka la isu keeno meel la isugu keeno la wada hadal siiyo wixii dana laga wada hadlo arintaas waa arintaan idin kula dardaarmayo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم ilma lagu dawooba dabka lagaga bayraa takanada ku garataa dadnimada ku barataa dusha sare allaa jira daafaha warbayaal dadka loogu talagalay nin lahoo wadaydayo البهات بحذا دبك ساري كسوددن ترترذا هالبولها تندل كي وذاقان توتوب كمروك يطا البهات بحذا دبك ساري كسوددن ترترذا هالبولها تندل كي وذاقان دكتوكي أي لافتبا ووحي بدوغا إيدا لوغو تريا تبنا لوغو عليا وسئولية ديركين دكتوكي أي لافتبا ووحي بدوغا إيدا لوغو تريا تبنا لوغو عليا وسئولية ديركين وسئولية ديركين تائنكينو وعانا تيغيو طلبدانا تائنكينو وعانا تيغيو طلبدانا شيطان كبترانا تيبين تابيو بدانا دنجيجينا نعيبا دنبي آدمي جعلا